إنا لله وإنا إليه راجعون. قرحي كدعي زوبة 14 أكتوبر maalintii sabdiga ahayd wuxuu ahaa qarax aad u weyn oo aan ka dhicin Soomaaliya oo magaalada Muqdisho weligeed aan ka dhicin. waxaad musiibo aan horey loo arag waxay ahayd arrin naxdin gelisay dadweynaha Soomaaliyeed intii ku nafweysay qaraxa ee ku geeriyootay waxaan Ilaahay uga baryaa in uu jannadii firdawsa ugu bishaareeyo eheladii ay ka geeriyoodeen iyo dhammaan shacbiga Soomaaliyeedna waxaan Ilaahay ka baryaa inuu samir iyo iimaan ka siiyo intii ku waxyeelooday ee ku dhaawacantay qaraxa isbitaalada jiifta ilaa hadda xanuunsan waxaan Ilaahay uga baryaa in uu siiyo caafimaad degdeg ah oo Ilaahay caafimaadkooda soo celiyo waa in cadaalad loo raadiyo dadkii ay wax ka soo gaareen qaraxa si cadaaladda loo helana su'aasha ugu horreysay loo baahan in la isweydiiyo waxay tahay yaa ka dambeeya qaraxan oo fuliyay ilaa hadda waxaa la tuhunsan yahay al-shabaab oo iyadu waxa ka qaraxa ka geysan jiray magaalada Muqdisho ee lagu yaqaano inay qarxiyaan dad masaakiin oo waxba galabsan waxa kale oo jira tuhun ay inay ka dambeeyaan shisheeyaha dalka jooga oo aan ognahay inay xirooyin badan oo military ay ka furan yihiin dalka calooshoodu shaqaystayaal badan ay jooga shirkado waxa jooga oo private ah intuba dadka ay shaqada siiyaan waxa ay yihiin lama oga waxa ka dambeeya iyo waxa fuliyay intaba waa in la helaa cadaaladana la marsiiyaa waxna laga qabtaa oo arrinta loo baahan yahay in la sameeyo hadda ilaa 2009 qaraxyadan way soo noqnoqdeen waxay ka qabatay dawladuna ma jirto wax ilaa hadda isku day inay joojiyaan ama cadaalad marsiiyan wixii geystana ilaa hadda ma jiraan shacbiga Muqdisho waa laga maarmaan inay isku tashadaan wax badan ay sugayeen in cadaalad ay helaan nabadgelyo looga dhigo magaaladooda laga daayo madaafiicda qaraxyada dhibaatooyinka dadka Muqdisho waa inay isku tashadaan isku haleyn shisheeye waxay u qabanaysaa dadka ma jirto waxay dadka ka celinaysana male shisheeyuhu dan buu leeyahay danna kama laha wixii dhintay wixii noolaada dan waxaa ka leh nabadgelyada magaalada Muqdisho waa shacbiga Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan siiba dadka reer Muqdisho sidoo kale lagama sugi karo xal calooshooda shaqaystayaal sheegtay inay yihiin dawladda Soomaaliyeed ilaa haddana aan ogeyn kana soo bixinin waajibaadka ka saaran waajibaadka dawladnimo ee ka saaran dalka iyo dadka Soomaaliyeed waxa kaliya ay qabtaan ay tahay inay shisheeyaha u siixaan heshiisyada ay rabaan iyo qeyraadka ay ka rabaan dalka iyagana la isku mahaleyn karo halkii dawladdu ay baadigoobi lahayd wixii geystay falkan kana shaqeyn lahayd ka hortagooda iyo sidii maxkamad loo keen lahaa iyo sida qaraxani u dhacay meesha ay wax soo mareen inta isku mashquulin lahayd oo la baari lahaa arrintan oo la xisaabtami lahayd hay'adaheeda ee nabadgelyada iyo wax kasta oo ku shaqo lahaa arrimahan oo kale inay ka hortagaan waxay ka bilaadahay barodiiq iyo banaanbaxyo iyo dadka inay halis hor leh geliso oo meelo aysan nabadgelyadeeda sugi karin inay isugu yeerto inay isugu yimaadaan ay ka dhamaan laadahay inta kuwa wax qarxinaya ay ku mashquulsanaayeen sidii ay u qarxi lahaayeen dadka masaakiinta ah iyo shacbiga Soomaaliyeed oo isdiyaarinayeen oo baabuurtooda iyo qaraxyadooda iyo wax kastaba ay diyaarsanayeen dawladdu waxay ku mashquulsaneyd sidii ay ula safan lahayd dalka Qatar kuwa sheegtay maamul goboleedyada iyaguna waxay ku mashquulsanaayeen sidii Sacuudiga loola safan lahaa Imaaraadka inta ay ku mashquulsanayeen arrimaha ayaa qaraxyadan la diyaariyay lagana fuliyay magaalada Muqdisho intaasoo qof ku dhimatay howlgabnimo haddaysan taasi ahayn ma aqaano waxa noqon kara howlgabnimo dadka Soomaaliyeed ayaa laga rabaa go'aan inay ka gaaraan arrinta iyada Soomaaliya cid uma maqna biyo sacbadaada looga dhirgaa nabadgelyo ka dhicmaysa dalka haddii dadka Soomaaliyeed ay ku shaqeynayaan dixraac ku salaysan in la soxo qaladaadka jira kuwii dhacay laga hortago la hubiyo mar dambe inay soo noqon iyagoo ku shaqeynaya dawlad wanaag sidii loo heli lahaa nabadgelyo sidii loo heli lahaa xasilooni sidii loo heli lahaa
wada noolaansho shacbi iyo midnimo sidii loo helaa dadka Soomaalidu ka shaqeynaya inay dowlad dhistaan ayaa looga bixi karaa arrimahan ee looguma bixi karo musuqmaasuq dowlad lagu soo dhisay iyo tuugo boosraadis ah ee cid walba ka gadaysa dalka inay dalka horkacaan looguma gudbi karo dhacdadana waa inay hurdada naga kicisaa oo ay noqotaa mid suurta gelisa inaan u istaagno in qarax dambe uusan ku dhiman qof dambe oo Soomaaliyeed mar kale inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un